عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan galab wanaagsan subax wanaagsan qof walba waqtiga u tahay waan ku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shalay xoogaa waan yar mashquulay marka maan soo sharaxin kareemkeena intii hadhay. intaanan kareemka sharaxin waxaan rabaa xoogaa yar inaan idinla qaybsado kabanigayaga iyo ganacsiga iyo sida loo sameeyo. aniga hadda saa aragtaan ma gurigaygaan dhex jooga. hooyo kastana waxay jeceshay iyadoo gurigeeda dhex joogta ama gabadh kasta inay maxaa la yidhaahaa ganacsato. waqtigii baan u saamaxayn inay bannaanka u baxdo. marka waxa weeye way inay intay bannaanka u bixi lahayd guriga dhexdiisa ay waxay ku iibsato intay bannaanka ka samayn lahayd in laagna ay guriga dhexdiisa ku samayso. marka faa'iido tii ka badan bannaanka aan ka soo shaqaynayo waan haystaa. aniga weli dadka fadhiistay oo maxaa la yidhaahaaye 9 bilood laan ku jira. dadka fadhiistay oo guriga oo kaliya wax ku qabsada meehi. shaqadaydii bannaankana waan shaqaystaa, tii gurigana waan ku shaqaystaa. ma fadhiisan weli, laakiin waan rajaynayaa insha Allah inaan shaqada dawladana kaga fadhiisto haddii Ilaahay ii qadaro. aniga iyo walaalo kale badan qaar ka fadhiistayna way jiraan oo kabanigayga habla ka shaqeeya. gurigay fadhiistaan shaqadii dawladda inta iska soo fasaxeen ayay tan ka shaqaystaan. ilmahoodina iska haystaan oo korsadaan. waxa weeye faa'iidooyinka ku jira adoo gurigaaga dhex jooga baad haddana shaqaysanaysaa, lacag samaynaysaa, caruurtaadi ku dhex jira cuntada u samaynaysaa, dayaca ka ilaashanaysaa. maxaa la yidhaahaye wax walba guriga kaa. shaqada online-ku waa shaqo faa'iido fara badan leh, laakiin dadkeenna Soomaaliyeed weli way ku yar tahay, aadna umay fahansana. aad saad uga dhaadhicsaa way adagtay qof Soomaaliya inaad tiraa kaale online baan ka ganacsanaynaa. way ku adag tahay sababtoo tay kama dhaadhicin kartid, maba sadaqsanaba. in yar oo midhiya laba abaa fahansan in online-ka lacag laga samayn karo, laga ganacsan karo, faa'iido laga heli karo. waa run, waa laga ganacsan karaa, faa'iidaad ka heli kartaa ka badan tii kale adoo gurigaaga dhexdiisa jooga baad samaynaysaa. waxay ku saabsan tahay hal qof aad linkigaaga u dirto oo kaa iibsada, ama 2 qof ama 3 qof oo linkigaaga aad u dirto kaa iibsada, online-kaaga iibsada adoo gurigaaga dhexdiisa jooga. ku Facebook kaa soo raacay, ku YouTube kaa soo raacay, ku Snapchat kaa soo raacay, aaladda leh kaa soo raacay. waan idinku badiyey hadalkii maxay ahayd aad iyo aad baan idinku soo badiyey. laakiin maanta waxay ahayd inaan kareemkeenan oo sayroomka aan inoo sharaxo haddii Ilaahay qadaro. waa kan, waa kii indhaha hoostooda la marinayay. wuxuu leeyahay bahalkaas yar buu leeyahay. marka waxa weeye taasaad lehaysaa indhaha hoostooda. haddaad dhulkan oo kale dadka qaar baa dhulkan duuduub ku leh oo markay qoslaan iyo duuduubkooda soo baxaa saasaad dhehaysaa. dhowr wiig kugu qaadan mayso. hadda aniga waan hadda saasaad u qabanaysaa. waa kaas kareemka saas uga soo baxaya waad marinaysaa. marka waad ku kala bixinaysaa meeshii ku duuduubantaba saasaad ugu kala bixinaysaa. intaad gaadhsiin karta wejigaaga ayaad gaadhsiinaysaa. waa bahalka yar baa ku dhex jira oo masaajka loogu talagalay inuu furfuro dhiigga iyo jidhka. dadka qaar aan da'i ahayn baa jirta oo inta markay qabowga yimaadeen wejiga ka duubmay, dhiiggii baa dabeetana kuu kala baxaaya. dhiiggii duuduubmay ayaa kala foqaya oo saas u duubmay. markuu kululaado dhiiggii wuu furfurmaya. waa masaaj, waad masaajeynaysaa. kadib waa inuu furfurmaa dhiiggu. waa kaas meelaad dhaafaysa male korkaaga. hadduuba duuduub lahaa weeye. haddii kalena madowgaas soo jeedka iyo dhafarku keeno iyo samboorka iyo waxyaaba
barbararka meelahaas dad baxa jira ka barara meelahaas oo indhahooda buurbuur leeyihiin oo dhulkaasaa uga barara saasaad u masaajeynaysaa kadib barbararka indhaha korkooda kaa galay wuu kaa hadhaya dadka aniga feedbacka ii soo celiya oo iga iibsada dad badan baa ku jira dhulkaas ka bararnaa dhulkaas indhaha korkooda ka bararnaa wuu ka baay bararkii dadka qaar baa waxay iiga gataan indhaha bararkooda bis oo ma aqaan ma dhihi karbaa ma garanayo dhulka indhaha korkooda barara waa loogu talagala wuu ka saaraa bararka dhulkaas haddii ilaahay qadaro qofkii indhaha hoostooda korkooda ka bararan ama madmadow leh waa wax loogu talagalay masaajkaas yar buu leeyahay haddaad indhaha korkooda ka bararan tahay waxaan kugula talin lahaa iibso linkiga kor baan idiin soo saarayaa ka iibso linkiga qofkii kale kabanigayga qof ku jira iyo kabanigayga bas qof gacan saddexaad male qof ku jira iyo kabaniga labadaasaad ka gadan kartaa haddaad rabtaan soo raaca linkiga kor baan idiin saarayaa haddii kalena waxay ahayd kabaniga ka gadanaysaan faa'iidada ku jirtana ilaahay baa sheegi kara waxaad adigu ka faa'iido inaad walaalaada u bandhigto waa qasab waa wax dadka muslimiinta ah oo dhan ka sameey yihiin faa'iidadan ka helay qof walba ka helaan rabaa insha Allah bidmillaahi kariim aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh